بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة الكسو دوادا برنامج كحق بله وأن تضوات كان كوريسان دونو ديريجلية أما أقويهن عبد الفتاح قاسم كاسو برنامج كمدده وسعوده كجاه اللي دونو نلشيسا يو waxa ku kalifay inuu noqdo dhiirigeliye waran ku soo dhawaad Cabdifitaax barnaamijka xog bile aad ma astawlalkay oo ku dhawahay adiga iyo howlwadeennada xog bile aadan idinku mahad celinayaa sida ay sharafteen Allah idin sharaf dhimantiin Cabdifitaax Qaasim aad u mahadsan tahay anagana waqtigaana siisay iyo fursadana siisay waan kaga mahad celinaynaa daawadayaal markana waxaan toos u guda galeynaa barnaamijkeena anigoo Maxamed Yuulka idin la socodsiinaya Cabdifitaax su'aasha ugu horeyso hadii aan ku weydiiyo waxa ay noqonaysaa Cabdifitaax goormeed noqotay dhiirigeliye aad ma astarti waa su'aal qiimo leh aan anigana qiimo gooni ay sameynayso daawadayaasha iyo dadka igu xiranna ay xiiseynayaan inay ogaadaan dabcan hawshan waxaan bilaabay muddo 5 sano ka hor hadda laga joogo lagu qiyaas 2015 malaha aslayaha bisha waxay Abriil maalin kamid ah ayaa waxaan jeclaystay in hawshan aan bilaabo waana maalintii ugu horeysay hawshan aan gacmaha la galo dhiirigelinta iyo manhajista dhalinyarada marka 2015 aan bilaabay ilaa hadda waan ku guda jiraa dhiirigelinta way noocyo badan tahay dabcan dadka qaar waxay u ololeeyaan dhanka caafimaadka waxbarashada haday noqon lahayd dhinaca arimaha guurka la xiriira ama dhaqanka marka adigu dhiirigelintaada maxay ku saabsan tahay dabcan waa sida ka dhawaajisay qof walba sida caalamka ka jirto qof walba wax un buu dadku dhiirigeliyaa laakiin Soomaalida ma fahansana oo dhiirigelintu waxay u fahmaan dadkan hadla oo dadka shakhsiyadooda iyo qofnimadooda kala hadla sida standardka dhiirigelintu sportska way gashaa ganacsiga way gashaa dhaqaalaha way gashaa caafimaadka way gashaa sidoo kale xuquuqda haweenka xuquuqda aadanaha waxa soo dhan way gashaa marka aniga Cabdifitaax ahaan dhiirigelinta waxaan kaga jiraa doorka in qofka lagu dhiirigeliyo shakhsidiisa sidoo horumar u gaarsiin lahaa dhiirigelintan waa dhiirigelinta aan ka shaqeeyo waa dhiirigelin spiritually ah oo qofka si ruuxi ah loo dhiirigelinayo loona dareensiinayo doorka nolosha uu ka leeyahay hawsha uu qaban karo waxa ay tahay inuu qabto waxa uu u baahan yahay si noloshan uu gaaro nolosha qiimaha leh asaga iyo dadka kula midba ay la jecel yihiin marka dhiirigelinteedu waa dhiirigelinta ruuxda ruuxdu sida ula jeedada la tahay aadanaha waa shakhsiyada aadanuhuna uu kala baxaa rag iyo dumar ay u kala baxaan ayagoo sidaas ahna hadana way kala da'wan yihiin oo caruurtii ayaa jirta oo ayaga hab gaar ah u baahan in loo abaabiyo ama loo wacyi geliyo sidoo kale dadka dhalinyarada ayagana heerka ugu dambeeyana waa dadka da'da weyn marka yaa dhiirigelisaa oo aadanaha markii loo fiiriyo dhanka heerarka dabcan waa su'aal muhiim markii aan bilaaway goolkaygu wuxuu ahaa in aan dhiirigeliyo dhalinyarada oo dadka igu levelka ah xilliga aan bilaawayna waa xilliga ay ugu mudnay dadkaas in la dhiirigeliyo dhalinyarada sababtoo ah wax ugu badan waqti lagu bixinayo xilliga waxay ahayd in banooni la iska ciyaaro in TV la daawado in social media la iska dhax fadhiyo aanan wax la qabsanin waxbarashada aysan qiimo lahayn marka goolkaygu wuxuu ahaa in dhalinyarada la dhiirigeliyo waxaan ka bilaabay waxay ahayd dhalinyarada inaan dhiirigeliyo kala qayb galo xafladaha u qabto tababaro hawsheedu dhalinyarada ka bilaabay haddeertan waxa ku soo xigsaday oo qayb aan ka soo galiyay dadka waalidiinta oo like maamooyin badan iyo dad qoysas leh oo maanta dhisan in dhiirigelinteedii fariinteedii ay sabab u noqoto inay noloshooda isbedesho dabcan waa wax oo aniga farxad gelina aniga goolkaygu waxa dhalinyaro laakiin waxa ku soo biiray oo Ilaahay ii fududeeyay inay qayb ka noqdaan dadka waalidiinta marka hadda waxa wax xoog aan saar waa labada in dadka da'da ah iyo dadka dhalinyarada aan dhiirigeliyo marka mustaqbalka dhow waxa qorsheyga ah oo aan aad ugu fikirayaa waliba xilli dhow ay tahay in caruurta aan ku soo daro hadii dabcan waxa inta u jeclaanayna waxay tahay hadii yaraanta ama xilli caruurnimada dadka lagu dhiirigeliyo garashadooda iyo hibadooda iyo awoodooda loo sheego way qurux badan tahay wax weyn ah ka soo baxay koriimadooda iyo weynaantooda marka hadda labadaas aan dhiirigeliyaa insha Allah mustaqbalka dhowna caruurtaan rabaa inaan ku soo daro hadii Ilaahay doono dhiirigelinta waxay la micno tahay inaysan hal qof aysan ahayn oo dad meel isku yimaada in aad dhiirigeliso taasuna micnaheedu waa fagaara ka hadalsa ila tahay marka in dadku mararka qaar waxa meel isugu keena organizationo ama hay'ado ama adiga koox isbiirsatay oo magac la baxday oo kulamo u sameeysa marka adiga ka shakhsi ahaan
ma cabdifataax ahaan ayaa maanta dadka inta isugu yeertid kulansiisaa mise meelaha fagaaraha waa lagugu casuumaa oo hay'adaha qabtaan dabcan ha waa su'aal muhiim ah waa laba marka howluhu way jiraan dhacdooyin ama events ama barnaamijyo aniga aan abaabulay oo dadka aan ugu talagalay inaan iyagu ku dhiirigeliyo oo ilaa 3 dhacdo kale taan hor u sameeyay oo dhalinyaro fara badan ay ka soo qayb galeen oo aan kala hadlay laakiin waxa inta badan dhacda ma aha waxaan aniga abaabulo oo wax jaamacado iskuulo ururo iyo dad oo hawshan igala shaqeeya ama horumarinta bulshada ka shaqeeyo kale ay soo abaabulaan dadkaas jeclaysta iguna casuumay inaan xafladaas kala qayb galo si aan ula hadlo dhalinyarada xafladaas kala soo qayb galo oo lana wadaago fariinta aniga aan haayo ay aaminsan yihiin haddii fariintaas aan la wadaago in noloshooda isbedel ay ku soo kordhayso munaasabadoodana dabcan wax qurux badan dadka ay kala tagayaan aniga iyo dadka ila midka lagu soo casuumayna ee macno weyn u sameynaysa marka waxa aad u badan xafladaha la igu casuumo oo ururada iyo jaamacadaha iskuulada dadka kaleeto ay abaabulaan ayaa aad u badan laakiin dhacdooyin aan qabto way jiraan oo aniga aan abaabulo aan ugu talagalay dadka inaan ku dhiirigeliyo maadaama hobbigaaga uu yahay in aad horumarka yani shakhsiyan qofka shakhsiyadiisa horumarkiisa ama sidoo horumar u sameyn lahaa aad ka shaqeyso meelaha maadaama adoo yoolkaaga eegaya xafladaha qaar ama kulamada qaar aan lagugu casuumin haddii aad ka warhesho ma ka dalban lahayd inaad ka qayb gasho oo aad hadal jeedin ka sameyso adigoo ujeedkaaga uu yahay in aad geyso meeshaas waxa adiga hayso oo bulshadaasi Soomaaliyeed ee halkaas ku kulmay ka maqan dabcan waan jeclahay aniga in meel walba munaasabad ay ka dhacayso aan tago fariinteeda aan dadka gaarsiiyo laakiin haddii aysan ii imaanin casuumaad la igu casuumay inaan munaasabada ka soo qayb galo dabcan way adkaanaysaa inaan tago meesha aan ka hadlo sababtoo ah dadku iyagu may jeclaysan sababtoo waxay garawsadeen in meeshaas aysan ku habooneen hadda waxa aan sheegay in aan ka sheego waa waxa ay garawsadeen sababtaasay u dhici kartaa inaysan igu casuumin sabab kale way dhici kartaa oo inaysan i garaneyn way dhici kartaa sidoo kale way dhici kartaa in aysan wali fariinteyda aysan arkin dhacdooyinkaas oo dhan way dhici karaan marka anigu ma sameeyo inta badan munaasabada aan casuumaad la ii keenin in aan tago oo hadal aan ka codsado ma sameeyo inta badan sababtoo ah in ay casuunto haddana xogaa macna ma sameynayso waxa macnaha sameynaa waxa waaye dadku inay fariintaada fahmi karaan kugu casuumaan meesha xogtaadana aad gudbiso marka xafladaha inta badan inaan ka qayb galo waa jeclahay laakiin midaan la igu soo casuumin inta badan ma ka qayb galo laajli waa ma mudnaan isleeyahay oo dadka abaabulayo haddii ay igu casuumin de waxa isleeyahay xogaa qashqashaad noqonaysaa si kulan walbo la qabanayo uu Cabdifatax uga soo muuqdo dadkii madaxa u ahaa ama isleedahay yani hoggaanka u ahaa oo maanta alla ilaahay urur hebel ama hay'ad hebel inta ugu badnaan bishii ama weegiiba isleedahay way qabanayaan kulan adigu ma isku dayday in cilaaqaad la sameyso dabcan ha institutionno badan oo maanta magaalada ka dhishsan oo barnaamijyo badan qabto saaxiib baan nahay oo waa wada xiriirnaa oo si dhow wada sheekaysanaa intaasna waxa uu sameynaa waxay tahay barnaamijyada ay qabtaan saan qayb ugu noqdo fariinteeda aan dad ula gaarsiiyo marka dadkaas aan wada xiriirno waxa waaye way ugu casuumaan barnaamijyadooda intaanan wada xiriirinna waxaan rajaynayaa insha Allah mar dhow inaan xiriiradooda heli doono si aan uga shaqeyno aniga ayagaba in bulshada maankooda la hago oo dadka isbedel weyn lagu soo kordhiyo marka waan rajaynayaa dadka aan wali wada xiriirin inaan xiriir sameysano laakiin inta badan xiriir waan wada sameysanaa oo munaasabadahaas way ugu casuumaan aadan ugu mahad celinayaa inta aan wada xiriir sameyno dabcan ma jiraan caqabado aad kala kulanto fagaara ka hadalka dabcan ha hawl walba oo la qabanayo caqabadeeda leedahay fursadeedna way daba taallaa dabcan anigana caqabad iyo ma aha marka caqabadaas aan la kulmay just waan ku farxaa oo waxay ii noqonaysaa hawl ii fududaynaysa wax badan oo maanta aan haysto markaan bilaawayay hawshan ma jirin qof ila fahansan ama ila dareemayo saaxiibadeyda ugu horeeyay lama fahmaynin familka sidoo kale dhalinyarada deegaanka sidoo kale malaha magaalada dad yar fara ku tirisa ilaa hadda fara ku tiriskaas magaalada ka shaqeeya hawlahaas aniga waxaan malaha ahaa tiradaas yaraan ku jiray dadku ilama fahmaynin markaas xafladaha qaar marka bilowga marka waxaan sameyn jiray munaasabadaha inaan tago hawlwadeennada xafladda xiriirinayo kale aan la xiriiro aan dhaho balnimayo fariin noocaas aan wadaay iyo ogolaada inaan dadka la wadaago fariintii waxa dhici jirtay in haye afka la iga dhaho laakiin aan la isiinin oo challenge weyn oo waqtiga iga luminaysa number 1 ay tahay number 2 dadka saaxiibada inay ii haysteen inaan waalana hawshan aan wada ay tahay wax maalaan yacniya
oo caqabadaha iga hor imaanayay dadka qaar waxay lahaayeen de waxaagu waa istustus oo waxaa wado dadka istusaysaa dadka iska gadaysaa ha iswaalin dadka qaar just marka caqabadahaas dhan way jireen marka aniga waqti kuma luminayn inaan iyaga u jawaabo oo aan dhaho like istustusiga ma aha ma isla saan ma sameeyo waxaas ma sameeyo waxaa muhiim yahay fariinta gudahayda ku jirta inaan dadka u soo bandhigo inaan dadka ku saameeyo inaan dadka u sheego muddo kadib alxamdulillah saaxiibadii shalay diidanaa way igu dhiiradeen inay maanta igu bogaadiyaan hawshaan ahaayo dad badan oo aanan is aqoonin hawshaan darteeda isu baran marka caqabado waa la soo kulmay way badnaayeen waxaa jirta dhacdada aan ugu xasuusta badanaa waxay tahay jaamacadaha ka mid ah maalin waxaan sameeyay programan abaabushay programka marka qoliyaha jaamacadda oo u qaabilsan dhanka hoolka waxaan ka codsaday hoolka inaan program ku qabsado waxoogaa malaha way suurageli weysay un arrimo maamul dartii hoolkii waa la ii diiday marka kuwaa la ii ogolaaday ardaydii marka banaanka buuxaan anigii hoolka aan joogo la iga ogolaan waa inaan hoolka wax ku qabsado maalintaa dabcan waan iska calool xumooday waana ilmay waan xasuustaa maanan iska waalin waan baxay oo cashira ii noqotay muddo kadib ilaahay wuxuu igu bishaareeyay maalintaas waxay challenge ahayd haddii aan calaacal kala fadhiisan lahaa wax dib ka dhacay ma dhici lahayn wax dib ka dhacay waxay noqotay in jaamacaddii iyada igu casuunto inaan ardaydeeda la hadlo maalinkaasi maxaa ka hadli rabtay waxaan ka hadli rabay hogaaminta nafta marka dibay waxay u dhacday in jaamacaddii la igu casuumo oo fariintayda ay gaarto marka waxa ka yidhaha waxa waaye challenge-gaas maalintaas igu dhacay haddii aan la fadhiisan lahaa may dhaceen in dib la iga soo casuumo marka waa sababtaa u leeyahay challenge walba fursaddiisa daba yaallo marka challenge-gaas haddii aan la fadhiisan lahaa fursaddaas maanan heleen laakiin ka faa'iidaysiga aan ka faa'iidaystaa wuxuu ii abuuray fursadda gadaal inaan ka faa'iidaysto marka caqabadaha way iska badnaan in intaas haddeertaan ka soo qaadanaya cabdifataax public speaking ama inaad si yacni mujtamac aad u fara badan oo boqolaal gaarayo inaad hor istaagto aad la hadasho waxay u baahan tahay waxa aad kula hadlayso inay yihiin wax diyaarsan dabcan waxaasi ma waxaad ku fikirtaa markii aad madasha ama hoolka soo gasho mise diyaar garow ayaa samaysaa ka hor inta aysan xafladda bilaaban waa su'aal muhiim ah laakiin waxaan ka hormarsanayaa in yar public speaking horta waa xirfad oo skill la barto waayo oo ma ahan dadka inta badan waxay aaminsan yihiin inay tahay wax loo dhasho dhalashadu way jirtaa laakiin dhalasho aan skill wadanin macno ma samaynayso marka fagaarka hadalka lagu jira marka waxaa jirto khudbadaha marka la diyaarinayo skills in la helo ay tahay waxa ugu horeeya waxa la yiraahdo planning and preparation marka planningka wuxuu yahay markii aad caawo kaleeto la igu soo casuumo xaflad inaan ka qayb galo qoliyaha igu soo casuumo waxyaabo waajib ku ah waxaa ka mid ah number 1 horta inay ii sheegaan xafladdaas wax looga hadlaayo number 2 holku ka dhacayo waa inaan xog ka hayaa dad ka soo qayb galaya age-kooda waa inaan ka war hayaa waxaasoo dhan marka information ka helo kadib waxaan maskaxdayda ka sawirnaa khudbadee ku habboon dadkaas inaan kala hadla aniga marka waxaan ogaaday goobta uu ka dhacayo waxa laga hadlaayo iyo holka dad ka soo qayb galaya waxaasoo dhan information haystaa markaas waxaan ka fikirayaa dadka maxaa ku habboon in laga hadlo haddii kolka wax ku habboon aan ogaado preparation aan galaya wax oo dabcan ma inaa holka tago kuma dhex fikiraayo just waxaan waa preparation aan sameynaya oo waan diyaarinayaa dadkaan hor imaanaya kadib fariinteeda waan gudbinayaa marka wax macnaha sameynaya fariinteeda qurxinaya waxay tahay preparationka haddii si kadiisa aad kula kulanta ka waran dad mujtamaca oo banaanbax sameynayo ama meel si kadiisa inaad la kulanto markaas oo kale waxaa ku hadleedan aysan ku diyaarsaneen qaab nooceed ku wajihi lahayd dabcan waxaan ku wajihi lahaa just inaan saameeya la iga baahan yahay xilligaasna ima furna xilli aan ogaado dadka age-kooda iyo hoolkooda iyo waxaasoo dhan inaan ogaado ay tahay laakiin fariinta gudahayga markaas ku jirto oo si ruuxiyan aan u gudbin karo ayaan u gudbinayaa tusaale dadku waxay ka banaan baxayaan like arrimo dhacay oo kaleeto arrimahaas dhacay wax ka bedeli kara garashadooda aan ku garowsiin karo in banaanbax uusan waxba soo kordhinin ay mudan tahay in hawshan haddii wax ka qaban karaan ay ka qabtaan haddaysan ka qaban karin howlahooda maalmeedka ay sii wataan just fariin ruuxiya inaan la wadaago kolkaa haddii aanan preparation soo sameynin tusaale dadku waxay u banaanbaxayaan in jaamacadaha tirada badan la yareeyo oo qaar yaroo kooban oo tayasan laga dhigo markaas oo kale maxaa ku wacyigelin lahayd bulshadaas dabcan wax dhici karo waaye dadku hadday ka banaanbaxayaan jaamacada in la yareeyo sababay u dooranayaan ay jirto sababtay u dooranayaan waxay tahay like in jaamacadaha qaar ay liidaan jaamacadaha qaar ay dhahan way fiican yihiin wax noocaas oo kaleeta waxa ugu mudan xilligaas inaan kala hadlaa waxay noqonaysaa in aan u sheego jaamacad ka fiican aysan jirin
oo qof walba uu isaga wax isbari karo oo haddii jaacad warqad uu ka soo qaatay hadduusan ka soo qaadanin laakiin nafsadiisa hadduu wax baro ay maxay ahayd wax macnaa usoo kordhinayso marka banaanbaxa jaacad ay ku wadaan inaysan waxba usoo kordhinayn laakiin haddii naftooda ay wax baraan inay wax macnaa usoo laabanayso marka intaasaan isleeyahay si ruuxii haddaa ugu sheegto xoogaa way yaraanaysaa waxaan khudbadeeda noocaasay noqon kartaa markaa khudbadda ayadoo kuu diyaarsan ama aan kuu diyaarsaneenba adigoo bulshadii saas u hortaagan oo wax badan ka hadlaya hadalkii makaa lumay dabcan may dhicin fagaara ka hadalka just waxaan dhahaa waxaa tuugnimo la ogol yahay jirto fagaara ka hadalka oo ah dadka adoo hortaagan oo kale inaad cabsato cabsadii ay qasabto inaad shib dhahdo wixii ay kaa lumaan macnaha dadka qaar way ku dhacdaa aan laakiin weli iguma dhicin allama hadiis oo dadka markaa hor imaado waxaan sameeyaa tuulisaan isticmaalaa oo just oo aan cabsidii waxyaalahaas iskaga xalliyo kadib dadka fariintaysa qurux badan ugu sheegtaa weli may dhicin anoo dad hortaagan wixii aan soo diyaarsado inay iga lumaan ama hadalkii ugu dhago ama actions noocaas oo kale weli may dhicin cabdi fitaax anagoo dadka xasuusinayna in weli aan ku guda jirno wareysigii aan la yeeli lahayn cabdi fitaax qaasim oo ah dhiirigeliye ama aqoonyahan Soomaaliyeed oo da'yar ah isla markaana nooga sheekeynaya waxa ku huwan ama faa'iidada ku dhex duugan dhiirigelinimada iyo waxa isaga ka guuxaya ee bulshada Soomaaliyeed uu la wadaagay anagoo su'aaleena ku guda jirno ilaa intee jeceshahay inaad sii wado dhiirigelinimada dhiirigelinta waxaan jecelahay inta aan noolahay inaan wado sababtoo ah ma ahan hawl dhamaanayso oo meesheeda ku ekaanayso dhiirigelintana waxaa aaminsanahay inay tahay hawl ilaahay ummadan dhan uu u abuuray shakhsiyadda baa kala duwan maahana ilaahay ummadda dhan u abuuray sababtoo ah ilaahay subxaanahu wa tacaala malaa'igtiisa wuxuu ugu faanay in dunida uu geyn doono dad safiiro ah oo safiiradaasna ay noqon doonaan dad dunida saameeya malaa'igta marka waxay dhaheen dhulka waxaa geyn doontaa dad oo dhiig daadiya marka ilaahay wuxuu yidhi waxaadan ogeyn ayaan anigu ogahay just ilaahay wuxuu ogaa marka in annaga inugu dhex jirto fariin naga weyn oo ay haddii siday ugu mudnayd aan u baarno ama aan u raadinno in daddan noloshooda ay bedeli karto marka inta noloshayda ka dhiman ismaylihi dhiirigelintu waad ka fadhiisan doontaa sababtoo ah wax iga qiimo badan ma aqaano in qof uu idhaho fariintaada ama codkaaga ama ereyadaada dartooda noloshooda u badbaaday marka maalin walba inaan maqlaa raba marka ereyadaas in malaayiin dhalinyaro ay dhahaan dartaada noloshooda u badbaaday ama isu bedeshay dhiirigeliyaasha Soomaaliyeed sanada ka hor hal ama labo ama ebre ahaayeen hadda way soo kabcayaan oo maalinba maalinta ka dambaysa nin dhalinyaro oo sidaada oo kale oo dhiirigeliya ayaa ku soo kordhaya marka si guud adigoo ku hadlaya afka dhiirigeliyaasha Soomaaliyeed teamka hadda soo socda ee ku soo kordhi doona kuba hadda jooga markii aad maxaa la dhahay aad isku imaataan ama kulan inaad samaystaan ma ku tala gasheen oo aad sida dalad u noqon lahaydeen oo hal mar la oran lahaa cabdi fitaax hebel 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 ayagii oo dhan oo wada dhiirigeliyaal ah oo maskaxdooda la isku keenay ayaa xaflad lagu casuumay goormee la oran doonaa horta haddeerta waxaan ku hadli karo mas'uuliyadda aan qaadi karo waa tayda oo cabdi fitaax qaasim ahaan oo hawshan aan ku shaqeynayo aniga dabcan rag dhalinyarana way jiraan oo hawshan ka shaqeynaya ayagana aad u bogaadinaya waa ku dhiirigelinaya inay hawsha halka ka sii wadaan dabcan dalad in la sameeyo oo lasu yimaado hawsha laga shaqeeyo fikradaha la isku biiriyo wax qurux badan la soo saaro waa wax aad u wanaagsan oo bulshada isbedel weyn ku soo kordhin karta justin waxay u baahan tahay laakiin dadaal iyo waxay u baahan tahay waqti iyo juhdi in la geliyo in magac la raadiyo in astaan u gooniya la raadiyo dalad meesha iskugu imaan lahayd waxaas oo dhan marka waxay u baahan tahay waqti dabcan haddii dhalinyarada kale igaga firfircoon ay waxaa juhdi ku bixiyaan ay soo diyaariyaan aniga inaan ka mid noqdo diyaaraan u ahay kala shaqeeyo munaasabadaha kala qayb galo laakiin aan ismeliyi haddeertaan dhalinyarada taqaanaa jiro inaa isku aruuriso dalad waa samayn kartaa ismeliyi marka diyaar u ahay laakiin haddii lasoo hagaajiyo lasoo qaabay ka qayb noqoshada ee tiimka annagoo koox in lagu casuumo program oo aad daladaas samaysanaysaan dadka Soomaaliyeed markii ay u baahdaan in xaalad taagan yani daraasad laga sameeyo ama laga doodo si marka meel ay idinkugu soo hagaan u helaan oo company walbana ama shirkad walbana ee si toos ah idinkula soo xiriirto oo dhiirigeliye walba u baahan tahay ee uga heli karto daladaas
dabcan waa wax qurux badan just waa intaa kuu sheego aniga hadda ismalihi waa hawshaas waa geli kartaa oo waa samayn kartaa laakiin rag iga fircoon oo abaabulka iyo maxay ahaatay samaynta dalad iyo haddii la helo oo hawsha ay soo hagaajiyaan ka mid noqoshadeeda aniga diyaar u ahay haddii la helo waxaa sheegtay public speaking-ka inay tahay xirfad la bartay aad iyo aad sidaa og tahayna ama dhacdayba waxaa la arkaa inta badan macallinku inuu macalliyaal badan uu dhalo aad iyo aad abwaanku inuu abwaan dhalo oo dadku dhahaan hebel waa dhaxal yacni xirfaddan uu sito aad iyo aad adiguna waxaad leedahay waa aqoon marka arrintaas aad sheegtay inay aqoonta tahay waxay muujinaysaa inaadan aaminsaneyn in dhaxal ama layska dhaxlo marka su-aasha aan ku weydiinaya waxay tahay dhiirigelinimadan qof qoyskaaga ka tirsan maa hore u ahaa mise adigaa ugu horeeya horta waa su-aal qurux badan qoyskayga dhiirigelinta marka laga soo tago qof hadla hataa kuma jirinba dhiirigelinta marka laga soo tago qof hadla hataa kuma jirin marka waa waxa aniga aan horta shakhsiyad dhiirigelintu shakhsiyad waa wax qof walba shakhsiyadiisa ku dhex jirta aniga saan aaminsanahay oo waxay u baahan tahay in la kiciyo boorka laga jafo aniga marka shakhsiyadeyda u samaysanayd in dad ay dhiirigeliso shakhsiyadeyda ayadoo u samaysanaa marka waxaan raadiyey skillska ku habboon in dad lala hadlo waxaa ka mid ah fagaara ka hadalka maareynta waqtiga horumarinta shakhsiyadda horumarinta nafta xirfadihii u muhiimka ahaa ayaan bartay adiga marka adigoo ka eegayo inaadan adigoo hidaraac ahayn oo qoyskaagana qof dhiirigeliya uusan ku jirin ma halkaasa ka ambaqaaday oo inta badan waa la arkaa fanaaniin yacni fanaan dhale abwaan dhale waa sidaa hore kugu soo sheegay marka adigu qoyskiina oo aan ku jirin qof dhiirigeliyaa ma halkaasaa ka duulaysaa maya dabcan dhiirigeliyaasha caalamka iyo dadka inta soomaalida aada saaxiib u nahay waa iska warhaynaa intooda badan maanan arkay qof dhaha waxaan dhaxal ahaan igu soo gaarto familkii qof ka mid ah dhiirigeliya ahaa kuwa caalamkan marka taariikhdooda akhriso ama historygooda abaarto ma ku jirto qof aabiis ka soo dhaxal inuu dhiirigeliye ah oo dhiirigeliye ku noqdo marka wax qofku isagu jeclaa dhiirigeliyaasha ayaa ku koobaysaa just hadda dhiirigelinta aniga intaan arkay dhaxal ma noqon karto just qof walba haddii uu jeclaado inuu dhiirigeliye noqdo uu noqon karaa haddii aan dhaxal waayo dad badan oo jecel inay dhiirigeliyaal noqdaan ayaa waxay ka noqonaysaa xuduud marka ma isleeyihiin reerkaaga qof dhiirigeliya ama aabbaaga ma uusan ahayn iska daa ha just hadda dad baa aaminsan in dhiirigelintu ay tahay wax dad gaara loogu talagalay ana waxaan aaminsanahay dhiirigelintu inaysan ahayn dhaxal balse wax la qaban karo ay tahay shaqo la rabo in la qabto ay tahay tusaale dhiirigelinta waxyaabo waxaa jira Soomaalidu ay aad u dhaliisho ah dhiirigeliyaashu waa dad af ka hadlo kaliya waa waxyaabo inta badan dhacda aniga la idhaahaba waxa sheegayso makaa muuqdaan waxa su'aalo intaas badan ay timaada haddii aad rabto dhiirigelintaada inay noqoto dhiirigelin saameyn leh dadka ruuxdooda bedesha oo dhaqaajisa waa inay adiga ka muuqataa like waxaa rabtaa inaad noqoto qof hogaaminta nafta dadka la hadla maxay ahayd waa inay hogaaminta nafta adiga ka muuqataa waxaa rabtaa dadka inaad dhahdo iska daaya waqti luminta waa inay adiga waqtigaaga ku ilaashantahay marka wax macnaha sameynaa waxa waaye hawshan inaad gasho hawsha markaa gasho ficil walba aad qaadayso ficilkaas inuu adiga ka muuqdo cabdifitaax aad u mahadsan tahay daawadayaal inta nagala socota xog bile waxaan isla soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijkii ama wareysigii aan la yeelanaynay cabdifitaax qaasim oo ah dhiirigeliye Soomaaliyeed oo aad u daayara cabdifitaax waxaan u gudagalaynaa su'aalooyin oo si gaar adiga ku taabanayaan laakiin aniga iga soconin oo dadweynaha Soomaaliyeed ay kula soo wadaageen su'aasha koowaad waxay noqonaysaa xaasle miyaa tahay mise horey u soo noqotay haddaadan hadda ahayn طبعا سؤال aad u adag laakiin si serious ay ugu jawaabi doonaa xaaslana maahi horan uma soo noqonin ugu baatay waa iskaabula dumarka ugu lahaa just iskaabula yani wax cusub yani cusubta adiga waa cusbahay waa cusbahay iskaabula iska ahay ilaahay khayr ka rajaynayna laakiin waxa jiro wax un iska foodfooda oo dadka ay dhahaan just marka ku arkaan oo kale xaasla tahay hore ay kaaga xubinayaan laakiin hadda cadeynaya su'aasha inay weydiisana way mudnayd xaasle maahi iskaabulaan iska ahay maadaama aadan xaasle ahayn ma jiraan hadda olol ku saabsan sidaad xaasle u noqon lahayd dabcan ha way socdaan ololahaas hamigaaga marka ma inaad
hal xaas guursataa mise dhowr xaas inaan hal xaas guursado hadda marka qofkaad aad guursan lahayd ma jiraa xiriir aad hadda la wado ama dadaalkeedii wada hadal idiin socdo dadaalkeedii aa socdo ma wax badan isku badaa mise waa keligeed dabcan hadda qof macnaha inta badan waqti ma ku bixi xagga sababta ani waxaa jiro rule aan isticmaalaa jiro rulekaas oo waxa ugu horeeya ani noloshayda waxa ugu muhiimsan 3 shay oo 3 shay waxa taa number 1 waxa ugu muhiimsan waa riyadeyda aniga riyadeyda aanuna gaarin wax kale inaan ku mashquulo diyaar uma ahi waxa igu xigo waxay noqonaysaa marka inaan raadiyo ololihii oo guurkii waxaas ku mashquulo marka hadda waxa wada ololihii aan riyadeyda ku rumayn lahaa bal markaas waxay noqon doontaa second in maxay ahaatay ololaha xaas iyo qoys aan ku dhisan lahaa inaan u diyaar garow hadii ilaahay idmo micnaheedu hadda wax xiriir ah oo aqfalada ma lahan ha ilbaabkaagu waa furan yahay oo gabadhii rabta hadda cilaaqada ku sameyn kartaa isti hadda waa hadda si diyaar uma ahi ba haddeertaan inaan hadda arrimo guuriyo waxaas laga la gasho okay sharmaarke aad u mahadsan tahay waxaa jirta isfaham dare ka yimaada dhanka xiriirka wali waxaan ku jirnaa arrimaha guurka maadaama aadan xaasla soo noqon laakiin wax badan ayaa xog ugaal u tahay maadaama dhiirigeliye dadka bulshada Soomaaliyeed dhexda ka galaata waxaa jirta qoysas Soomaaliyeed oo ku burburay si fudud kuwa waxaa jira ilaa iminka ayagii maxaa la caruurtoodii kala fog maxaa keenaya isleedahay ama sidee looga hortagi karaa dhibaatooyinkan ka dhex dhashta qoysaska horta si caadi ah waxaa jiro cilado common ay tahay in la xaliyo qoysaska markii la dhisaayo laguma dhiso si standard oo cilmiyeysan sida caadiga caalamka waxa ka jiro in qoyska intaan la dhisin ka hor la siiyo xirfado u muhiim ah oo guurka ka hor la dhaho qofkan markaas loo diyaariyo guurka markuu tago marka aniga waxaan aaminsanahay waxyaabaha keena burburka qoyska ama isfaham darada qoyska waxa ugu horeeya waxay tahay in aysan aqoonin kala duwanaanshaha rag iyo dumarka u dhaxeeyo qoysaska dhisan tusaale nin rag iyo nin macnaha rag iyo dumar markay isku dhacaan ninka ragga waxa laga yaabaa inuu xanaaqiisa u dhageysan waayo qofta dumarta ah dumarkiina ay meesha xarag ka sii qaado oo qoyska ay ka tagto laakiin kala duwanaanshaha hadii la fahmo oo raggu inay dumar ka duwan yihiin oo dumarku ay jecel yihiin inay hadlaan ragguna ay jecel yihiin inay wax dhageystaan hadii aan la fahmin oo la ogaanin caqabad ay noqonaysaa marka waxa ugu weyn oo qoys inay isfaham daro ka dhaxdhalata keeni karo waxay tahay in aan la aqoonin kala duwanaanshaha in aan la tixgelin kala duwanaanshahaas marka sida halkaas loogu gudbi karo waxay tahay horta in la barto kala duwanaanshaha in la sameeyo xiriir dhow oo lagu saaxiibi karo oo lamaanaha ay ku saaxiibi karaan just tababar jiro hadda magaalada laga qabtaa caalamka dhan laga bixiyo marka hadii ay jiraan caqabado qoys noocaas oo kale taa waxaan isdhihi lahaa tababaradaas un ha xaadiraano laakiin waxa ugu weyn waa isfaham darada kala duwanaanshahaas ay keenayaan isla oo rag iyo dumarka u dhaxeeya Cabdi Fataax gunti gabagabada isla soo gaarnay su'aasha ugu dambaysa ee kaaga yimid asxaabtaada kugu xiran wuxuu leeyahay qofkan maxaa sababa in aan mar walba aan ku howlanahay waxyaabo oo anaga qofka naftiisa aanan wax dana ugu jirin laakiin isagu wuxuu yiri waxyaabo aan nafaheena aanan maxaa la dana ugu jirin micnaheedu waxay ka dhigan tahay inuu asig ku jiro arimahaas uu ku mashquulsan marka in laga tala sii u baahan yahay marka wuxuu leeyahay dad kale ayaa dan ugu jirto anagana waa ku howlanahay sidee marka tooda loogu soo jeedin karaa dabcan su'aashu waxay u dhigan tahay saan qiyaas aniga aan u fahmay kuma mashquulsan wax nafaheena dan u ah waxaan ku mashquulsanahay dad kale nafahooda marka maxaa sababa oo arintaas sababteed inaan ogaano kadib saa uga laaban karo horta sida caadiga ah bini'aadan aan nahay bini'aadankana waxay jecel yihiin ixtiraamka qadarinta iyo jacaylka in la sharfiyo dhammaantood wada jecel yihiin si taas u helaan waxay iloobaan naftooda oo waxay ku mashquulaan qancinta bini'aadanka tusaale waxaa jirto gabadh dhiirigelisa oo dadka la hadasho laakiin balse waa naafo waxay leedahay marka iyada iska sheekeynayso qisadeeda marka intaysan naafo noqon ka hor waxay leedahay waxaan ku mashquulsanaa in aan dadka jacaylkooda kasbado oo aan dadka la saaxiibo oo dadka aan aad u jeclaado balse hadda waxaan aad u jeclaa nafteeda sababtaa waxaan ogaaday dadkii maalinta aan lugaha qabay jeclaa inaysan jacaylkooda dhab ahayn marka meeshaas waxaa kaaga cad hadda waxaa dad kale ugu mashquulshantaa waxay tahay inaad kasbataa rabtaa oo like jacayl iyo ixtiraam iyo qadarin oo bulshaawi inaad ka dhex qabsataa rabtaa laakiin waxa kaaga muhiimsan waxay tahay dadkaas weligooda kuma daba socon doonaan haddii dad aad isku daydo inaad qanciso nabigaa qancin waayo
haddii aad dhoola cadayso waxay ku dhihi doonaan maxaad u dhoola cadaysay haddii lacag aad la baxdo waxay ku dhihi doonaan maxaa lacagtaad ula baxay istus may kaa tahay lacagta haddaad ilaashato waxay ku dhihi doonaan niyo maxaad baqiil u tahay marka dadka meel aad ku qancin karto ma laha marka wax keenaya waxay tahay waxay u baahan tahay jacaylka dadka inaad kasbato si jacaylka dadka aad u kasbatana waxaa muhiim ah in naftaada jacaylkeeda aad kasbato naftaada jacaylkeeda waxaad ku kasban kartaa in aroorta hore naftaada aad la hadasho erey positive aad kula hadasho inaad dhiirigeliso wanaag walba iyo jacayl walba ay u mudan tahay naftaada inaad siiso inaad ku bixiso cabdifataax barnaamijkan soo xirina inta aan soo xirin baaqaaga guud ee aad u dirayso bulshada Soomaaliyeed wuxuu noqonayaa dabcan bulshadu waa qayb way qaybsan yihiin qayb walba nolosha meel bay kaga jirtaa laakiin halka baaqo aan u diraayo aniga aan ku duulayo wuxuu yahay qof walba noloshu meel bay ka haysataa xaaladaha adag qof noloshiisu ay isu dul saaran tahay oo u hagaagsan tahay ma jirto oo haddii adiga ay jaamacadda ka haysato qof bay shaqada dhib ka haysataa haddii qofka shaqada dhib ka haysato qof kale qoyska ka haysataa qofba meel ay ka haysataa marka xaaladahaas iyo duruufahaas ku haystaa haddii aad marmarsi marqaati uga noqoto nolosha macno kuma soo kordhinayso marka waxa ugu dambeeya aniga aan si niyad leh ku dhahayo waxay tahay ama dadka aan u dhahayo oo dhammaantood ugu gudbinayo ma jirto sabab aad marmarsi marqaati uga noqoto nolosha aad u mahadsantahay sharaf aad masha Allah daawadayaal guud ahaan barnaamijkii xog bile oo aan ku wareysanayna dhiirigeliya Cabdifataax Qaasim halkan ayaan ku soo gabagabeynayaa anigoo maxamed yuulka idin la socodsiinay intaan barnaamijka xiga ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo